haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah, fiidiyogan ku daran yahay, fadlan ha fiirsan. sheekadan waxay ku dhacday wiil magaciisa la yidhaahdo alex aabihiis ayaa dalxiis u waday si uu usoo kala baro magaalada. alex iyo aabihiis waxay qaateen baabuur dhexdiisa sida guri oo kale ah. wax kastoo guri laga helayana baabuurkaas dhexdiisa laga helayo. sidoo kale markastuu baabuurka halaabo, alex aabihiis ayaa farsamayaqaan ahaa, baabuurkana asiga ayaa samayn jiray. alex aabihiis markasta baabuurka ayuu wadi jiray, halka alexna uu wax ku akhrisan jiray baabuurka dhexdiisa. xoogaa markii ay wadada ku jireen, alex aabihiis ayuu wuxuu u sheegay inay gaajo heeso, intana ay ku joogsadaan kadib wax ay soo cunaan, kadib ay gaarigooda usoo laabtaan. alex iyo aabihiis iyagoo maqaayada u socda waxay ku arkeen wadada 2 mooto oo baakin ku jirin. arrinkaas wax weyn uma sii arkin alex iyo aabihiis, cuntadii ayayna isku cunayeen, iskuna mashquulin arrinkaas. kadib alex ayaa wuxuu fiirinayay 2 nin oo maqaayada sidoo kale wax ku cunayay. mid ka mid ah nimankii ayaa soo istaagay miiska ayuuna dharbaaxay, kadibna wuu ku qayliyey, wuxuuna ku dhahay maxaad iisoo fiiriseen. alex aabihiis ayaa xanaaqay, asiguuna u jawaabin alex ayaa isla markii soo booday, wuxuuna ku dhahay igaraal noqdo mar dambe idin soo fiirinay. isla markiiba alex iyo aabihiis maqaayadii way kasoo baxeen, waxayna usoo baxeen banaanka. waxay arkeen baabuurkooda oo baakinkii laga soo saaray, sidoo kalena baabuurkii fiilooyin iyo waxyaabaha qaar ayaa laga googooyey. laakiin alex iyo aabihiis way iska samaysteen, waxna maysan u arkin. kadib nimankii tuugada mid ka mid ah ayaa imaaday, wuxuuna ku dhahay ciyow ka kaxay gaariga meeshaan, haddii kale uu ku dilayaa. sidoo kalena wuxuu siiyey bistoolo. alex iyo aabihiis aad iyo aad ayay iskugu naxeen, isla markiina waxay soo fuuleen baabuurkooda si dhaqsi ah, meeshiina way ugu soo tageen. laakiin alex iyo aabihiis waxaa soo dabaracay 4 mooto oo tuuga ay saaran yihiin, baabuurka ayayna garab socdeen. kadib alex ayay waxay tuseen inay wataan bistoolad. alex arrinkaas aad iyo aad ayuu uga naxay, wuxuuna u sheegay aabihiis inay dadkan bistoolad wataan. alex aabihiis wuxuu ku dhahay booliiska wargeli. alex isla markii ayuu booliiska u wacay. nasiib xumo, alex iyo aabihiis waxaa ka halaabay gaarigii ay ku socdeen. kadib nimankii tuugada ahaa mootadii ayay joojiyeen, mootadana way kasoo degeen. iyagoo u socda, alex iyo aabihiis ayay meel dheer waxay ka arkeen iftiinka booliiska ama leerarka booliiska, meeshiina way ka carareen. kadib alex ayaa baabuurkii kasoo degay si uu booliiska u joojiyo. nasiib xumo, wixii soo socday booliis maba ahayn, waxay ahayd ambulance. tuugadii waxay la carareen iftiinka ee meel dheer ka arkeen, ayay waxay u maleynayeen baabuurka booliiska, laakiin baabuurka booliiska maysan ahayn, keliya wuxuu ahaa ambulance. sidaas nasiibka badan ayayna ku badbaadeen alex iyo aabihiis. fadlan haddii aad janalka cusub tahay subscribe saar, haddii aa hore noola joogtana videoga like garee.